xiisad ka cadsanaanaya iyo mudaharaad ay dhigayaan shacabka ayaa weli ka taagan magaalada Boorama. Arrintan ayaa salka ku haysa bandhigga buugga Xeer Ciise oo shalay galinkii dambe Somaliland ay fasaxday qabashadiisa. Dadka reer Boorama oo diidan qabashada munaasabadda bandhigga buuggaasi ayaa sameeyey xalay mudaharaad, waxa ayna sheegeen in aysan ogolayn in magaaladu ay martigeliso bandhiggaasi. Intaasi kadib ciidamo ka tirsan Somaliland ayaa la sheegay in rasaas noolnool ay ku kala eriyeen dadkii bannaanbaxa dhigayay, waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac gaaray qaar ka mid ah dadkii dibadbaxa dhigayay kadib markii dibadbaxayaashu iyo ciidamadu ay gacmaha isla galeen. Buugga bandhiggiisa laga mudaharaadayo ee Xeer Ciise ayaa waxaa laga qoray xeerka ay ku dhaqmaan beesha Ciise, waxaana dhowaan aqoonsatay hay'adda UNESCO. Siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Awdal iyo guud ahaan kuwa dhaliila xukuumadda madaxweyne Cirro ee Somaliland ayaa sheegay in xukuumaddu ay hannaan aan sax ahayn ay u wajahday xaaladda Boorama sida ay hadalka u dhigeen, oo laga maarmi karay ciidanka shacabka rasaaseeyey. Maanta oo Jimco ah, xaaladdu way ka yara degan tahay sidii ahayd xalay marka loo eego qaabkii bannaanbaxu uu ku socday. Dhankooda booliska Somaliland ayaa sheegay inaysan jirin cid laga yeelayo qalqalgelinta amniga, islamarkaana ciidanku ay gacanta ku qabanayaan ammaanka guud. Xisbiyada mucaaradka ee Somaliland ayaa sheegay in arrintan laga maarmi karay, islamarkaana xukuumadda laga doonayay inay muujiso mas'uuliyad iyo xilkasnimo looga hortegayo inay dhacdo dhibaatada ka dhacday magaalada Boorama. إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا راجعون إلهي حرسنا كورابيو dhalinyarada ay naga dhimatay inta dhaawacana Allah inoo caafiyo, ehelkiiyo tarkadii ka tagayna sabiriyeema Allah ka siiyo dhammaantood. qodobkayga labaad, anagu haddaan odayaashii nahay, halkan laga diray 22 ahayd, Hargeysa tegey, waxaan qaadnay anagu ama halkan kala tagnay fariintii ama taladii go'aanka ahayd oo maadaama madaxweynuhu noo yeedhay aan markoona isku khilaafno ha loo tagayo yaan loo tagin ahayd, laakiin intayada badan ha loo tago ayaan geynay. marka hore waxaan doonaynay oon ku ballanay odayaasha sabtida beriya ee bishu 6 tahay inaan dadka la wadaagno wixii halkaa aan kala soo kulannay madaxtooyada. duruuf baase saamixi weyday. halkaa taanu geynay waxay ahayd inaan arrinka buugga ay wataan ee fasaxa la nooga doonayay inaan mar raba aanaan fasaxayn aqbalayna. qodobka kaas waa kii halkan boqol iyo googa odayna ay kaga shireen weeye. ka horta dadka iyaga ee shakhsiyaadka ah ee beenta isku maaweelinaya, beenta ummadda la dhex socda, waxaan leenahay war dadkiinana beenta ka daaya, madaxdiinana meel ka dhac ka daaya. beri haddii la idhaha way bishu 6 tahay, waxaan ku ballansannahay wadaashii halkaa tagay intii laga maarmi waayo in aan isku nimaadno haddii ilaahay yidhaahdo oo xagga looga dhaqaaqayo aan isweydiinna haddii alla yidhaa. taana sidaa ogaada. ta kale waxaan leenahay meeshan aan isku haynaa xukuumadda maanta, meeshaan isku hayna waa saylac wey, maha Boorama. halka aan ku soconnaana waa saylac wey. waxaan leeyahay war waxba lagama faa'iidaye dhimashada iyo dhaawaca iyo umuurtaa uma ka imanaya iyo burburkaase. waxaan leenahay yaan taargetku iyo hawsha halka loo socdaa yaan la lumin. magaalada burburkeega baabaeega
dhimashadeeda waxaan is leeyahay wax ka soo kordhaya oo dhib haynin ma jirto waxaan leeyahay dadkayga waxaan leeyahay arrintaa hoosa loo eego berri haddii ilaahay yidhaana waxaad naga helaysaan shirkaa wixii ka soo baxa haddii la idhaa odayaal kale oo shir jaareed qabanayaana way jiraan halkaasuu baaqu ka soo bixi doona haddii ilaahay yidhaahdo waxaan mar labaad ku celinayaa intii naga dhimatana allah u naxariisto inta dhaawacaana allaha caafiyo dee intaanu magaaladiiba soo gaadhinba dee wakaa go-aankiisii sheegay marka dee cidda tashanaysa waa inaga weeye cidda tashanaysa waa inaga wax iska weydiinaysa waa inaga aad iyo aad iyo aad baan Let's